madaxweynuhu musharax maaha 2025 musabix ma hadda labada nin iyaguna Cabdiraxmaan iyo Faysal de kuwa qornaba iyaga laftiga lagama yaabo 2024 doorasho dhacday laakiin si doorashadu waxay dhacaysaa 2025 ninka soo socda waa nin aan inta baahayn oo nin kale oo dadku markuu soo baxay ay aad u yaabi doonaan oran doonaan de lamana filayo in xitaa madaxweyne dalka noqonayo ismkiisu waa Maxamed xaqii doorashadii Soomaaliland muran baa jira 2024 ayay u astaysan tahay dabayaaqada doorashadu inay dhacdo macquul ma tahay dhacdo maya lagama yaabo 2024 doorasho dhacday laakiin si doorashadu waxay dhacaysaa 2025 haddii la gaarsiiyo sabab ilmu dhagolkaygi waa gar ilmu dhagolkaaga markaas lagu kalsoonaan karaa de markay xilligeeda gaadho baad xaqiiqsan karteen wixii ninkii sheegay oo ahayd oo kale waa gar taas weey saddex nin baa u taagan doorashada madaxtooyada marka laga yimaado ururadii iyaguna xisbiga u tartamaya yaa ku muuqda ee soo bixi kara madaxweynuhu musharax maaha 2025 musabix ma hadda musharax maaha labada nin iyaguna Cabdiraxmaan iyo Faysal de kuwa qornaba iyaga laftigooda sabab de madaxweynaha kama noqonayo waxa qaad jira waa nin qarsoon yaa ku yiri waa cilmi dhagolkayga dhageyso ninka soo socda waa nin aan inta baahayn oo nin kale oo dadku markuu soo baxay ay aad u yaabi doonaan oran doonaan de lamana filayo in xitaa madaxweyne dalka noqonayo ismkiisu waa Maxamed ka soo waan gartay marka musabixina maaha Faysal maaha nimankan erana maaha nimankan de hada marka adiga ma waxba ku soo deeyaa ku soo waxi maaha cilmi dhagolkii oo bikaas marka xaw ka imanay de waa dalka unde bulshada ka soo jooga ha waan gartay waxa suuragal in Maxamed ka noqdo waa suuragalba maalintii dhaweyd hoos fadhiyay ee wax saxeexay saddexda madaxweyne u taagnaayeen arintaad marka waa siyaasad ma ya siyaasadda maaha de waa suuragal baaba kulina ka noqon karo maadaama aan kulaa Maxamed waxa suuragal laakiin se wali Maxamed la yiraahdo la socdo waan gartay markaad leedahay Maxamed buu noqon karaa soo arintaad arin siyaasadeysan maaha ma siyaasad maaha cilmi dhagolkaagi markaas lagu kalsoonaa waxa lagu kalsoonaanayaa wixii markii yimaadaan ay soo baxdo de waqtigii sanadkii ay gaadho ayuu dadku yiraahdaa sheekh waxa uu sheegi jiray sanadka soo socda waxa ka yaro doorashay la oran jiray moogta xisbiga laga yaabaa inuu ka soo baxo ma taa kuma sheegi karayo ilaa hadda waan gartay arrimaha kale jira colaadahan iyo sanadkii in dhaafay soo noqnoqday haday laascarood ka mid tahay haday gobolada bari ka mid tahay arrintooda iyagu dhamaan doontaa Soomaa laascarood sida loo doorasay ha sidii iyada 1995 dagaalkii sokay sidii loo xalin doona laascarood arrinkeeda wadadii loo maray ayda ku sheegtay dawaa cilmi dhagolkaygi marka wax walba mu sheegay dawaayo see loo maray xagee loo maray dariiqii loo maray heshiiskii 1995 colaadii sokay dalka ka dhacday ayaa kaan lagu xalinaya nidaamkaas ayaa u jeexan oo nabad bay noqonaysaa xaaladdeedu waa xasiloonay ayaa ka dhacaysa oo Soomaaliya dib ugu soo noqonaya labadii way waayo Soomaaliya dadku isma dilaan oo meeshiyaan waan gartay dhinaca kale muranka siyaasadda Soomaaliland oo muddo soo jiray ilaa haddana taagan ma laga yaabaa sanadkan u dhamaado ma dhamaanayo sanadkan waa sanadka ugu khatarta badanba weli waxaad maqli doontaa ereyadii aflagaadiya ay isdhex mariyo hawada waxaad aragtaa kooxo xisbiyada kala taageersanay in xisbiyada laftigooda iyo ururada iyo isku wada dhacaan dhibaatooyin badan baa ka dhex dhalan doona weli aflagaadiya ay leh oo muran leh oo weli si daba jiitama ilaa 2025 tir gaadheedo uu soconaya wax dhibaato ah ha u arkina oo stress ah iyo in lagu kala guurayo laakiin taqarraq waxba ma yeeliyo oo soo dhaaf laki wax yeelay 23 baahayo kaasa khatar ah